mar kale ayaan waxaan ku wareysanayaa mar kale magacaaga adoo sheegaya cabdiqaadir ku soo dhawow maxaa Soomaali cabdiqaadir jaamac weeye again waxaas dhow oo bisha May 5teeda waxa dhacaya doorashadii minishiibiyada ama dawladaha hoose ee magaalada London xaafadaha kala duwan ee London ama degmooyinka kala duwan waxa ka sharaxan Soomaali fara badan oo aad u fara badan sanadkan waxaan rajaynayaa ummadda Soomaaliyeed oo reer London in ay soo baxaan oo ay codkooda dhiibtaan meesha aan xataa qof Soomaaliya ka sharaxnayn xildhibaanka ugu dhow oo dadka wax u qabanaya inay doortaan laakiin ay codkooda bixiyaan oo ay doorashadooda bixiyaan waayo farq bay samaynaysaa waan ogahay oo dhalinyaradu ma doorashada kaba qayb galaan laakiin inaad jiidaan caruurta oo geysaan weeye oo si ay inoogu soo baxaan xildhibaano Soomaaliyeed oo tiro badani cabdiqaadir su'aal waxaan ku weydiinayaa maxaa u dhaxeeya Mareykanka Soomaalida horumarkay ka gaareen inay wadanka dhex galaan reer London ama wadanka UK maxaa u diiday in bulshada la dhex galo oo wax lala qaybsado wali bannaan baan ka taaganahay fiiri Mareykan iyo Yurub waa kala labo Mareykanku waa dal la tagay aan cidina lahayn umadii tagtaba way yeelanaysaa kan dad baa iska lahaa oo deganaa oo leh anaga yaani maadaama aanu muddo ku noolayn nasiye waraaqahoodii laakiin ma u furfurna sida Mareykanka fursaduhu uma aha sida Mareykan iyo Canada iyo wadamada la tagay oo migrationka loo tagay dadkii indigenouska ahaa oo u dhashay dalalkaas way xaqiran yihiin laakiin halkan dadkii u dhashay baa jooga anaga yaani xoog way waxaan ku galeynaa ma fahmaysaa oo nimanka gabdhaha iyo wiilasha xildhibaanada ka noqday oo minishiibiyada galay waxay karti dheeraad ah Yurub oo dhan kaga galeen umana aha macnaha cunsuriyadu aad bay ugu sareysaa dalalkan marka farqaas noo dhaxeeya anaga iyo Mareykan iyo Canada oo basically waa dalal la tagay ummadoo dhan u furan cabdiqaadir laakiin dad badan hadda dhalinyaradii meel walba aragtay wadanku way dhex galeen shaqo kasta iyaga ka shaqeeya odayaashii meesha tan yimaaday xoogaa difficulty ayay ku ahayd laakiin hadda waxaa moodaa dhalinyaradii inay soo baxeen meel walba aad tagtid xafiis walba ugu tagtid meel walba Soomaalida ay joogaan haddana dhinacii kale siyaasadda leyd bay ka yihiin maxaa waxaas keenay fiiri waxa weeyaan professionaliska waa runta oo dhaqaatiir baan leenahay looyaraan leenahay xisaabiyayaal baan leenahay dhalinyaradii ku guuleysatay oo wax ka يعني waxbarashadooda dhisay wiil iyo gabdhaba xafiisyadooda waxaad ugu tagaysaa Soomaali ka soo jeeda oo ka shaqeynaysa siyaasadda xageeda wali nooma furna مثلا ciidanka booliiska Soomaalidu saa uma gasho anagu waa ku dhiirigelinaa jaaliyad ahaan waanu ku dhiirigelinaa inay qortaan askarta inay qortaan mataqaanaa wadanka la dhex galo oo systemka lala qabsado laakiin maxaa la dhihi jiray yani wali waxa naga xiga saasoo ay tahay waxaan kuu sheegayaa Soomaalidu 30 sano ay joogtaa qolooyin waxa jira 100 sano joogay oo aan gaarin meesha aan ka gaarin dhinaca ganacsiga iyo dhinaca mataqaana shaqada iyo dhexgalkaba ummado badan oo nooga soo horeeyay baan gaarin meesha aan gaarin alxamdulillah bayska aan ku soconaa ma xuma cabdiqaadir aad iyo aad baan kugu mahad celinaynaa arrimaheennuna way soconayaan waa inii imaanaynaa reer Camden siyaasadda Soomaaliyana waa in ka wareysanaynaa 15 kana doorashadii Soomaaliya dhacaysa taasna way noo dhiman tahay waraysigeeda waa sugaynaa aad iyo aad baa u mahadsantahay